maxay shariicadu ka qabtaa marka ilaahay nabigeena wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam وفر من المجذوم فرارك من الأسد وإن كعرر قفك أو جذام كقضاء وحد كعرر يسا سيدا اللباح أو عرر لهذا سيدا اللباح أو عرر لهذا ساد راد هذا قفك عذر كفافة قوا وإن أتكفقاتها ساد كوجاري لهين سأقول دقادي لهذا إن ومدى الصومالي وحلو ابتلاي تجمعاتك يسويماتك يميلها شاكوينك وحيابا على كفرين marka ugu horeysa ilaahay quraankiisa kariimka wuxuu leeyahay falawla ijaahum ba'suna tadarru hadii ay ba'siyayna oo umaado hadii ay tadarruci lahaayeen waxaan naga rabaa in istislaam la nimaado ilaahay u hogaansano jirada ilaaha keena aaminsano inuu adoon yahay ilaahana qaada qofka wanaagsan iyo qofka xun waa ku wada dhaca waa imtixaan rabaaniya waa inaan dhahno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wa inna ilaahi unaqano ananiyo iyo kibir iyo aan joojino waxaan u baahanaa kaliya إن أنت تعلمت دكاترة يتعلمت دينك أن قادم دين تحي أمر رئيسا إن ضدك عذر كهدوي ماذا وإلا كلا فقاده